واتاي daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii 8aad ee waraysiga taxaniin Mujaahid Awaare Mujaahid qaybtii 8aad ku soo dhawow sheekadii taxanaha ay inoo socotay waxaynu marinay Ali Waciidi ko yimid di wax weeyaan watana maxaa la yiraahdaa isirgaalka labaad ee aagaasi Xasan ninka lagu magacaabo oo maxbuusan soo qabateen bal nooga waran Xasan xaqii aad wareejiseen inuu sidii idin kula joogay iyo dagaaladii xigay bal sheekada halkii inooga sii wad su'aal wanaagsan alaween kulay koladii dagaaladu faqastinada dhulkii joogto dagaaladu way soconayaan kolba meel ay aga dhigtaanba marka horta Xasan si fiican ma loo dhaqano waxnu geynay halkii talaskii meel garbaala la oran jiray ayanu geynay isaga lagu xanaaneeyo lagu baxnaaneeyo waxa marka waxay xaabisay hore xeebtaan ku qaqabanayo xasoode waxaan ku dhowr iyo sodona ayaa iyaguna meesha joogay moogtahay marka halkaasana isagana ayanu geynay marka sirgaalkaas intuu xilligii intuu dagaal ka dhamaanay halkaas joogay markii dambana walkay xaqaasa laga dhiibay xaqaneen tirada walkano Addis Ababa walkano si fiican ma dadkoodii baa gacanta loo wada saaray ayaa marka isagu halkaasi sirgaalka iyo hawshiisu halkaasi si nabad qabta loo geeyay kadibna waxaanu dagaalada kulba wala qaban qaabinaya kulba qaar baa la qaban qaabinaya waxa la qaban qaabiyay dagaal xilliga waana kuleelkii baa soo galaya kadibna taliyihii jirifna isagoo naga maqan Maxamed Xasan Allah u naxariistay imka uu dhintay waa ku imaanta loo dhintay ayaa labadan taliye Ismaaciil iyo Abandula ciidanka iyo taliye xigeenkii ciidanka aaga guutada xeebta oo ilka asal oran jiray labadaas ayaa operation waxa la qalqaliyay in la weeraro law yacada iyo yitqoshi halka in la weerar hadana lagu rogaal celina lagu sameeyo maalin kasta waxa ku koorday meesha waa ya kadibna waxnu ka soo guuday meel la yiraahdo aaga jiri xaqan marka ayaanu xarun ka dhiganay marka dooxay halkaas oo jiri iyo gargaare iyo halkaasaanu marka iyagana marka ayaanu naalay halkaas ciidanka meel jiri adag meelahaas oo laga soo bixi kadibna tuqoshi ayaado adigu habeenan maalmaan kulba soo guurino meel soo dugani marka 40 waxaan la yiraahdaa dhacaya hadda maanan gaari geedkan hoostiga maalinta haddaadan ku yiraahdo tabta roobka shimbiraha iyagoo afka kala qaadaya ay shimbirtu saa u soo daadanaysaa waxaan ku sida adinay waxaan ku kulba roobda ayaad moodis ay dhalaq ka soo leedahay marka xilli dagaal qaado ما بقى هين لكن operation خلطمي بو هادو oo anago marka dagaalka imkaan ku soo guuleysanay guulaha faraha badan la ku kadkeento waxa weeyaan waxba ku sii macaananaya moogday marka dagaalkaas oo ay ana wax istaawinaynin ba hadana horumar laga sii sameeyo laakiin si maalin dagaal la qaado ma ahayn moogtay marka dagaalkii tuqoshi baan ku soo galay meesha la yiraahdo marka ma fatri baad wadateen ama fatri macal gaadiid waxa iyaga dhamaan marka tuqoshi meesha la yiraahdo oo meesha tafaqashna tarajay weyn bay ka samaysato seel ayaa xaasinada dad iska civilian iyo xaasin ba joogay loo yacdana waa kuwan ka guureedaano maalintii hore ku hongoonay dib dambe soo degin ba laakiin meesha xarunta ugu weyn waxay ay ka dhigteen tuqoshi macal taliskiyo wax walba marka meeshaasaan anaguna doonaynay inaanu kicino oo hadiya tirada weerarada u badan jirnay adoo arintii kulkaan saay u dhacday waxaanu soo galay aroortii hore 6 ayaanu ku bilownay dadii kulkaan ku bilownay ciidanka waxaan ku wari ciidanku tarajaygi toos ugu daatay gaadiidkiina waxaan ku wari ka daba galay waxaan ku wari anagoo markiiba waan guuleysanay horta gaari suugaanu ka qabtanay waxaanu qabsanay maxaabiis dhowr iyo 10 aanu qabanay kadibna halkii anagoo joogno oo waxaan ku ka dagaalamayna ayo gawaarideedii ku dagaalamayay si kaagu gaarigan kulaasi kaago la saaray ayuu ka warkuba qarxay beelki
هي كوري كارجي سوقا يوكو واحد كوري إذا كانوا هايستو يسوقنا تلاقي كاوضة بس صورة كاتير صار ماشي كارجي سوقنا حقوا أبو يرقبي أيوه هاي الكورك جيبي سوق قرح مركا إنك حبت دون طلع بقى وديو على يمكن مو حقن إذا كاي سرقال ويان سراكيش إذا كوكو ترى يمكن عشان لا يهم فيها مركا إن كيرو نيلا هذا إن كاشين شقاق ناس يسوقنا في دوكا marka kebiga waxaan ku wari anaguna gaariga marka guuriga yar xunayaan barigaan loo macmalaa naga dhaqaaqay marka anagu kolkan laba jiiro dhowr jiiro ridnaa tarajeegan ridnaa cabaysa qadana aan soo cabaysnay soo wareegnay ayu gaarigu naga dhacay marka gaariga naga yar baqtay iyaguna daqiiqad ba nagu dhaafayno wartan ku ayaan ku waxba handa siidaan naga hagaajisanaynay gaariga markiiba inamadii lugaynaya markiiba noo yimid oo waxaan gaariga xadka warka ka qarxay هي مركا تلا يدفع waxaan anaga nagu adaatay ninkii 15 nin oo maxaabiisa ee gaarigiisu gaana marka way ka yimaadeen marka kolkii ay xaaladdu ku cuslaatay waagina waxaan ku wari aadana wax xogaa dheer ku taagantay kulaylkiina uumigina wuu soo haya xaaladuna marka way fahmina kol hadana markiiba joogtiba meesha xoreysan ciidanka siida loogu dhufto wax la ka soo bax kasoo bixidii dibiso qiba marka inamadii lugaynayo gaarigiiba ka qarxano anaguna dagaalkii ayaan u weedaaranayo waarba iska sii lugaya koodi maxaabiistii iyo wixii waxaan ku ciidanku soo qabteen iyo ciidankan raad markii dambe ugu gaariga iyaga ugu dambeeyo wax rasaas ridaba adu ciidankan raad reeb oo hayno ciidankii uu soo baxay halkaas ka soo kala baxado halkaas hadana kii kala xaqaasina uu baxado adu waxaan badanaa technicadeedu wala 12 gaari way noqonaysaa يا لبا سوق iyo 37 iyo laba saakaaw baa laba baroon iyo laba jiib adigu ila 12 gaari oo technical fiican baan haysanaa marka technical aan lama hayso afatariga laakiin ciidanka uu yar yahay oo ciidan ma goodona meeshii nin naga dhinta mooyaane inoo soo biira ma jiro koori oo goodoon meesha loo mooyaanka oo meesha loo sidee loo mooyaan oo waxaan ku wari sanad iyo sayd baanan ayaan cid arag adigu markii dambe waxaan ku wari ciidankii kolkii la soo saaray ay in yar joogan shaqo jiro wayna fahanti waxa nimankaasi maanta kolteena soo weerareenay baxeena haade maxaabiistii wixii naga kaxaysanay waxaan ku wari khasaare badan inay gaarsiiyeen aynu waxyeelo nimankaas oo haraadka aynu kaga daba tagno isla maalinta way isla markii kolkana marka gaariga iyaga saarada reeb ciidanka oo dhan oo waxaan ku wari saas u wareegaya wala halkaas ma afaqashiyo ciidanka wata laba saddex urur xaqa oo ka soo galiya meesha ururciisiya urur labaad iyo Sayd Umar marna qoladan laba urur koobaad iyo labaad ayaanu kolba u imanana marka saasan u moogtay ayaan isku xidhanay raacad reeb bana saawna kadibna markaasaan ismaal faqashi warheede halkan kol hadii soo kana ciidankan anaga ka soo disina dooxasan soo daba galaysinaya iska tago ciidankan u taga halmayana halkan waan idin ridanaya jooga anagoo ka dhagaaday isagoo leeyahay war iska baxa uu leeyahay isagu taa nooga tagay ciidankii wax bartii baa isku kaaya dambeysay marka ismaal faqash bartii markuu idinka tagay ma xaqii aad ka soo guurteen buu tagay mise meel kale ma wuxuu tagay isagu laba saddex urur halkaas oo markaa hore dagaalgelinayo qaybta dagaalgelyaha guudna uu ahaa markaa kolba qayb muddo ku soo hagaagay qaybtan kalena saraakiil kale aad joogtay marka ciidanka isku xidhkiisa ayuu isku moogtay marka wuxuu ciidankan soo saaraya oo dooxa soo daba galaysinayay idinku iska taga halkan maadaama gaadiidkii kalena baxayo halkan joogo idinku halkan yaan la idinku qaban buu uga jeedaa isagu nimankeena faqashina way soo dhaqaaqday waa bonde baabuurtoodii lagu soo ridayaan markaa saddex gaari oo markaa aan isku ridanaa anagu oo talantaali aan ugu ridanaa magta gaari suuga iyo gaari baroon iyo mid kaawaya saddexdiina ayaa saddex gaari baa iyaga nagu soo ridaya anaguna halkan gaari oo qudhan ciidankay technically kale xaqaas iyaguna ka dagaalamaya marka faqashi wayna soo daba gashay gebiga marka waxay fahanteen in kolkan xilliga kulaylaha nimankan talaabo badan qaadi maayaan waxyeelo bay sidii anaga waxyeelo xoog laan markii hore u geysanay kadibna anaga waa naga soo daba shaqeeyno kadibna ciidankayagii baan u tagnay ciidankayagii xagga yar galbeed oo san ku nimankii
nimankii halkaasi way goodoomayaan wayna kala go'nay markaa macal faqiyo ciidankii awootiyo anagu ayaa kala go'nay isna dhinac kale ka dagaalamaya tan dhinac kale ka dagaalamaya markaa afantari bana waa soo daba galeen niman afantari oo badan baa la soo saaray oo markaasay dooxii ay iyagu ay ku jireen ay soo daba galeen gaadiidkuna xaggan wadadii dooxa waraabood ayuu isaguna soo maray oo wadadan toqoshii tagtay dooxa waraabood iyo isku xiriirisa dooxa markaa wadadan anaga joogna markaa dooxa kolkan anaga doox yaro kale oo intaan waraabo soo gaarnay ka baxnay ayuu ciidanku meel banaan isku baxay markaas halka difaaci ka galooliyay halkaasi hon wadadii markaa aan xogaa u jirta halka ha ku nasto markaas ciidankaasi intuu soo baxay la sugay ciidan baa markaa ciidankaas markaa gudaha ku yar jiray moogto xaga geerga barina naga xigay adu arintii ku xigeen sidii ay waxay noqotay inaan ciidankii kala goono nimankiina soo daba jabsaadan macal wadadii aanu maraynay wadadii yareedee waxaan ku wari dooxii waraabood tagaysay tooska u baxaysay ayay soo mareen ciidankaygina tiknikada markaa xabadda isla gaadhaysay afantari lama gaadhayo waa lagu ridayo waxaa la yidhi warniyow ciidanka wuu godoomayaaye degdeg 3 gaadhigu tallaaba gaadhi suugaya gaadhi tirasaniyo kaayagii ayaa la yidhi ha tallaabaan waanu isku soo qaadnay oo kolkaanu in yar soo marayno ayay iyaguna halkaa nagaga soo bilaabeen umaanaan joojin horta annagu gaadhigayagii fududaa markiiba waanu dhaafno gudihii baanu galay labadii gaadhiga kale gaadhigii tirsan kaaya gaadhigii suuga ahaa waa ninkan la yiraahdo gaagaale Axmed gaagaale halkan qolada sirdoonka gobolka waa haystaabe ayaa markaa ridiyay gaadhiga tirsan kaana markaa Cabdi Madooba wadayo markaa dhowrin ayaa iyaguna watay halkaasay iyaguna isku heleen anaguna gudihii baan dalqanay ciidankii baan u tagnay markaa ciidankii oo haraatay oo kala wada wareegay ciidankii Ismaal Qashuub nafar dhaqaaqay aanu jirin ayaan markaa oo 5 gaadhina eriyanayaan halkan dooxa soo garab qaadayaan oo kulankaade waxaan ku riyay ون عرب كدبوا عنده كبيجود بين الضد واحد سكرات كسر كل كي بلا بيبالو ونوع سكرات كم عندها بقف كبيجي سبق اللي ما يوم ما خاصة عندي يقول كاجا يمكن صوت تاجن كل كذا هرات طوح نقولنا يا إنه يترجع بقى نقول بقيت ساعة ويالو أيان ونن دقائق يا أنا الحين بين صوت تاجن شن إيته بنم بانو وحن كوري أينو قاريك سحديسي كسو كنا مركب فوت بيا أنا كنا صارين قاريك فوت بيه هو بايلس لبروجيا سا شاه سمارك طب تشاه بجيس كا هيش كله بروجيس كوري مركب أنت نو ساو شبنو ويل كل شبنو أينو أفكار ساو جو قويننا عرب كيقولون ساو ولا قوينين بيه نتوش كذا شبناي أي عندي هي وحصان نقدين marka laba bari dolool iyo qori samana gawri samankayga anu waligay baan iska haystaa samankayga halkan uu yaala samankayga maalinta ku tagal galay wadanka gaariga ayaa la yiraahdo lagama badajin maana ka dajinba marka ayaanu nimankii ciidankii Ismaal Faqashi wixii dhan labadii urur kale saddexdii ururba bartaasi nin walba geed hoosiib ku dhacay nin qashridi karaya ma jiro nimankiina waxaan ku way soo daba jabdo ninkii horta nin awl oran jiray oo Allah u naxariistay marka 15 ka wadoodee nin sarkaalo Sayyid Umarna in koox watay 15 kin isagoo wada ku soo gaaray faqasha ku soo gaaray hay 15 kin isaga barba lagu wada qabtay hay soo qabtay kadibna waxaan ku wari qaar anagoo arkayno halka waxaan ku wari sheyda ka arkayna عبد العصاد الله يرحمه كان شو جيو أيها بيك وحنا كيد كلا بحيا ولا كايا فدي عبد العصاد وقواي مكقاضية أنا قلنا أنتي كلام الدور رورينا المكت كدينا جيت كلنا نو قاري ساو هوست كنا دو جيت كلنا كاي قاري نبو قاري 7 دي بو يان مكت جيت كلنا كم كسر قرينا حاجة سنة وحكوري أنا قيب سنة وحي أردن مختار شرقي الله يرحمه كمعتمد لايو ما حكوري إنه تيجي قاري كوايا تفيو نم والبوح نكون كان لفتي السمن كسي في عم بيغاني ورجعنا وضعنا السمن كاجن قاضوا الكاس سمن كوي سوقنا ساوق شري waxaan ku wari ina suuqna muqtar suuqna biyo bari dolol waxaan ku wari kamitan qori baro baalaksan gaariga iska fordir xaq hore ka saaraban koodi aniguna 7 iyo qori bari dolol
iyo kan labadaba saddexdaasaan doonaya in rido goor aad ku midi joogsado ka kale aan ku dagaalamo wadada ay noo fadhiistaan markaa saddexdii gaari na kala gooyay markii hore ayaa wadada noo fadhiistay markaa kulankan iyo balaayaysigana gaariga uu banjarinaya laba taayir baa fiista naga haya 15 sakaraadkaana waan isdina bartii baan ku soo qaadnay bartii baan kulkan saa ugu joogna xabad sabana ayaan saa gursi xabadii sabanka kulkan saa gursiday bay nimankiyo saasoo intii waxaan ku qoriyay soo kala wareejinayeenba ayaan isla markiiba wada yar baan hal taayir baan helay wuf isla markiiba ciidankayga baan la joognay bartiiba markaa ciidankaygana suugagiiyo wixii ku soo rideenoo nimankii adigu wixii ay qabanayeen way qabtaan rag badan bay maalinta naga qabtay maalinta adigu rag dhowr iyo 30 ah ay naga qabtay dhowr iyo 30 nin bay ay nolol ku qabtay hay kawri marka dagaalkana marka hore rag baan adigu rag dhowr iyo 40 maalinta naga dhintay ونن قرن ميدان مايا اسكو isgeeyntooda marka intay qabteen iyo intii dhimatay la isku daraa intii xabadda naga dhimatay iyo kolka la isku geeyo intii ay qabteen nolol ku qabteen dhowr iyo 40 bay yaad ka xustaa dhowr iyo 40 dhowr iyo 40 ku waxayna ururadeedii waa weeyeen oo ragga jeelka ku dhintay boora ma ciida ka badnaa taad gartmaan laba nin ba wax nool ah loogu tagay kawdi laba nin Cabdi ka iyo nin la yiraahdo hay shaqaq bal oran jiray labada nin kawri iyo Cabdi Shuruq bal oran jiray filaya labada nin ba wax nool gebigood wajeelka boorame ku wadantay soo adkartay ma wax gebigood rag saaxiibadan oo keysii yaray waxaan ku ori ali guri gaariga wada jiray waxaan ku ori aan qoran jiray ku diraw labaad buu gaarigayga ayaa hata kamid ah toban daawil oran jiray kamid ah awlka waxaan ku ori ayaa kamid ah waxaan ku ori saddex urur labaad iyo urur ciisa iyo seed umrta intaas horta ugu badnayd ragga marka haraadka lagu qabtay Ismaaciil Faqishkan iyo raggani waxaan ku daan wani gebiga saddexdan ururba marka hore waan weyni hay 15 kaas marka macnaheedu wax way dir qoon haraadu ku jiraade hay soo gurteen habeenkii baan soo guri doonaa oo ku soo wadaay hay habeenkii ayaan ku soo bixi doonaa laakiin nin nafar 15 ka aan markaa soo qaadnay mooyaane iyo labada urur mooyaane wax kale shantayada urur xabta ka dagaalamayay wax kale labada urur gebigooda way hurdaan waxaan ku xaraad way haraadeen kadibna kulkii habeenkii gabalkii dhacay waxaan ku ashooyinkii la kariyay ayaa la yiri ayaa 5 gaari meeshana lagu soo galiyay gaariga markaa ugu horeeyay meeshii bartilmaameedkii garanaya in halkan 15 nin ka soo qaadnay inamadiina way nala socdaan oo wada nafisi oo nin walba qorigiisii bikamkay wixii sita geed walba markaas ugu hoos tagnay kragi jabadini wax ku dhal saddexdii urur ayaan habeenkii sidaan ugu dhigay ilaa waa barigii ilaa 7 aroornimo ayaan gurin ragiyo noolo laakiin ragiyo noolo aan mid tamar la'aan jirin laakiin way yar dhibibeeno galinkii dambe ma soo dhacday dhadeedii iyo adu uurkii ma soo dhacay inaaminka dhamaska kulal baayday oo caleen ka dhargay oo quruur ka dhargay oo wax walba cunayday kaadi cabay kaadidan la sheegayo wax walba كوري oo jeer waqtiyaadana soo nafsay saad garatay ma illa todobadii arooniman gurin dhamaan horta iyagoo markaa qaar rag nin aan weynay mooyaan oo markaa xagga hore u yar dhacay waxa waraabad naga dhacay mala ilaa 3 nin baa mar dambe meedkoodii in loo sheegay moogta 3 nin alla 3 nin Ciise ahayn urka Ciise kamid ahayn oo intay dheereeyeen xagga hore mareen in allayaale intii kale oo dhan ilaa 150 ciidan ku dhadhow oo saddexda urur ayaan bartaa waxaan ku ori ayna ururnimadii ilaa 7 gurin Ismaaciil Faqishii waxaan helay markay waxaan ku ori raacay koowaad ma raacay labaad baan helay Ismaaciil Faqishii bartan ku soo joogay ya gees hoos yaala geed hoos yaalo inoo ridaya xabadda marka daqiiqo ka nafiski ifisadu inoo ridaya marka habeenkii oo dhan halka adigu arintaasina halka dagaalka xaraadka ee qatarta dhibaato weyn baan soo galay xil dagaal la qaadana ma ahayn mid kale waxaan jabadu waxaan ku tariska xoorun bay dahayd moogta soo gartay ma qorshaha dagaalka halkaas way ka xumaad qorshaha dagaalka xilligaasi xilli dagaal la qaadi karo ma ahayn laakiin saanagu wax isku dagayagu wuxuu waxbay ka guuleysanaysan guushii hore waanu sameynay laakiin se iyaguna nimankan way na fahmeen oo kaartada dambe naga daba yimaadeen ay kaga dileen ay naga guuleysteen
وهاجاك daawadayaal qaybtaasi sideedaadna ee warayska taxanay mujaahid awaare intaasaynu ku soo gabagabeynaa intaan isku iman doono qaybaha dambe waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh